runtii farxad weyn bay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo xaadirna aan noqdo daahfurka systemka lagu ilaalinayo laguna waardiyeynayo activitiyada iyo shaqooyinka badda gudaheeda ka dhaca oo Soomaaliya qaybtood ay licensiga siiso doomaha iyo maraakiibta qayb kaleeto tiro badan oo aan sharci daraan ay ku dhex jiraan runtii shaqadaas wasiirka waa ugu hambalyeynaya dhammaan tiimka wasaaradana waa ugu hambalyeynaya waxaana ku dhiirigelinayaa wasaaraddu inay sii wado systemkan lagu monitor gareynayo waxa ka dhex soconaya badda Soomaaliya oo agtihiin maanta adduunka meesha u socdo oo kheyraadka ugu badan oo adduunyadu hadda raadinayso in laga raadinayo badaha exploitationka la raadinayo in la sii wado wasaaradda juhdigeeda ay maanta muujisay oo halkan ku soo bandhigtayna ay sii kordhiso si loo kordhiyo awoodda iyo capacity-ga wasaaraddu ay leedahay ee lagu ilaalinayo shaqooyinka iyo activity-yada ka socda badda Soomaaliya waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro dhammaan maraakiibta wasaaraddu ay siisay shatiyada laakiin jabinaya oo khilaafaya shatiyadii la siiyay oo aan raacayn regulationkii loogu talagalay inaan halkan uga diro degniin ah in wasaaraddu ay hadda la timid monitor systemkii lagu monitor gareyn lahaa activity-yadaas xafiiska xeer ilaalinta iyo law enforcement agencies Soomaaliya ay diyaar u yihiin in wax kasta oo wasaaradda soo report gareyso oo sharci darro inay la xisaabtamayso kuwaas waa kuwa laysanka la siiyay laakiin laysankii la siiyay jabinaya oo khilaafaya shuruudihii la siiyay kuwa kale tirada badan oo illegal fishing Soomaaliya ka wada waxaan halkan ayagana digniin uga dirayaa Soomaaliya haddii waagii horeeto ay ku mashquulsaneed xalinta umuuraha gudaheeda ah biriga ka dhacaya hadda waxay diyaar u tahay inay ilaashato kheyraadkeeda awoodeeda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala badda dhex dhigay dadka ku dhex jira oo illegal fishing ka sameynaya Soomaaliya gudaheeda oo shirkadaha dawladda waaweyn ay leeyihiin iyo kuwa bareefada labadaba waxaan halkan digniin uga diran inaan la xisaabtamayno rule of law Soomaaliya sidii horeeta maaha xisaabtanku sidii hore waa ka duwan yahay waxaan diyaar u nahay inaan kula xisaabtano oo ku maxkamadeeno gudaha Soomaaliya cidii aan ku maxkamadeyn weynana gudaha Soomaaliyana inaan adduunyada meesha kaga jirto aan ku aadno oo maxaafisha caalamiga ugu tagno sida hadda aan muranka badeena la geliyay aan u geysanay maxaafil caalamiya oo hadda dacwadeeni ay gabagabadeedii aan soo gabagabayna hadda sidaas oo kale taa cid kasto aan reportkeedii evidencegeedii aan helno ugu maxkamadeynayna una raasanayna hab caalamiya international law wuxuu ogol yahay oo dhan baana qaadanayna oo aan hirgelinayna hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ugu dambeyn mar labaad shaqaalaha iyo wasiirka ugu hambalyeynaya hawshan weyn ay hayaan waxaana ku dhiirigelinayaa in laasinada kaliya la bixinayo si fiican aan loo monitor garay lagu dadaalo markab kastana wasaaraddu isku tayado inuu qof wasaaradda ka tirsan saaran yahay si loola socdo hadduu leer dansado hadduu shaqadii qaban waayo hadduu wax sameyn waayo wixii loogu talagalay sameyn waayo oo awood loo siiyo in uu qofka shaqaalaha markabkaas shatiga la siiyo saaran haddii la khilaafo oo la jibiyo inuu report soo siin karo wasaaradda isla markaana capacity awoodeena isticmaali karno waa idin ku dhiirigelinayaa hawsha heesaan waana idin mahad celinayaa aad baan u mahadsantihiin